Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa beri oo Khamiis ah kuna beegan 20-ka Agoosto 2020 waxa ay fadhi ka leeyihiin xaaladda dalka Soomaaliya sida ay shaaciyeen diblomaasiyiin. Daneeyayaasha arrimaha Soomaaliya ayaa lagu wargeliyay ka qaybgalka fadhigan looga hadlayo xaaladda dalka, waxaana si gaar ah diiradda ay ugu saarayaan ammaanka, galguurka doorashada, iyo kaalmada howlgalka Midowga Afrika. Soomaaliya ayaa isu diyaarinaysa martigelinta doorashada aan la isku raacin nooca ay noqonayso, waqtiga ay qabsoomeyso iyo buuqa siyaasadeed ee ka soo yeeraya dowlad goboleedyada qaar, siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ah. Dhanka kale, Mareykanka ayaa fadhiga waxa uu dhex geynayaa cunaqabatayntii dalka Iiraan oo ay gadaal ka riixayso dowladda Mareykanka sida uu xaqiijiyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Golaha ayaa dood ka leh u hoggaansanaanta cunaqabataynta nukliyeerka xukuumadda Tehran la saaray sanadkii 2015 iyo qaraarkii u oggolaanayay inay bacrimin ku samayn karto gantaalada aan khatarta badnayn ee 6 quwadood ee adduunka ay ku kala saxiixdeen magaalada Vienna. Ujeedka heshiiskaas ayaa ahaa ka hortagga Iiraan inay samaysato hubka nukliyeerka oo khatar gelin kara, isla markaasina khatar ay u arkayeen dowladda Mareykanka oo ah midda ugu tunka weyn adduunka, iyadoo laga fogaanayo waddadaasi loo marayay. Su'aal ayaa ka timid sharci ahaanshiyaha dhaqdhaqaaqa Washington ee habka dib loogu soo celinayo cunaqabataynta. Madaxweyne Trump ayaa si cad waxa uu sheegay in xukuumadda Iiraan uu marinayo waddo caqabadeed walba oo lagu caburinayo heshiiska Iiraan u oggolaanaya bacriminta gantaalada aan halista badnayn.